heestan aan qaadi doono oo hees taariikhiya. heestan waxay ku saabsan tahay laba fanaan oo Soomaaliyeed oo caan ah ayagoo aad u daayir is jeclaayeen. weliba ninka fanaanka ayaa wuxuu jeclaaday gabadha fanaanada ah. labadaba caan ay ahaayeen. ninka uu dhintay Allah u naxariisto fanaan weyn oo Soomaaliyeed masraxiyada Soomaaliya waqti dheer ku jiro. gabadhana way nooshahay laakiin Ilaahay awlaad ma siin waxna ma aysan dhalin. waana fanaaniinta waaweyn ee Soomaaliya iyo Soomaalida iigiga Soomaaliya aad loo yaqaan. weliba heesaha wadaniga aad caan uga marka waxaa dhacday fanaanadaasi ayadoo da'da 16 jirka ayuu fanaankan jeclaaday. xoogaa yarna uu ka yar weynaa. wuxuu yiri waan ku jeclahay waxaan rabaa nolol inaan kula qaato maadaama aad tahay gabar yar oo qurux badan haatan dugsiga sare dhameysatay waxbarashadii jaamacadeedna wadanka bilaabayso xilli nabadeedna lagu jiro. waxaan jeclaan lahaa inaan ka faa'iideysto quruxdaada iyo jacaylka aniga ugu jiro wixii ka soo baxana ay noqdaan doog iyo iftiin isla ifa oo cirka iyo dhulka inta u dhaxaysa ifiya. sababtoo ah jacaylku waa waxa ugu qiimaha badan ee bini'aadamka iyo insaanka iyo xayawaanka Ilaahay uu siiyo. xitaa jinka markay wax jeclaadaan buuraha inay ka daataan ayaa la sheegay oo aysan adkaysan karin oo marka kaliya qeyladooda jinka la maqlo oo dadka duurka degan ama baadiya ama xayawaanaadka ay ka soo cararaan jinka markuu wax jeclaado buuraha ka daataa. marka adiga weydiiday ninkii qadar ayaa dhacday. gabadhii waxbarashadeedii ay sii wadatay fankeediina way ku jirtay. markii ninkii waa iska tegey asna fankiisu iska sii watay waa guursaday. adiga waxay kulmeen 60 sano kadib ayadoo waayeel noqotay iyo asigoo nin weyn oo waayeel noqday oo caruur iyo xaas iyo adduun samaystay wada isagoo hormaadeen qurbaha. bes waxa dhacday oo waliba xataa wadamadan Carabeed ninka markii dambe Yurubta u soo gudbay laakiin fanaanadaas Soomaaliya ku laabatay. hadda ay sheegana magaceeda waa caan asiga hadda ay sheegana magaciisa waa caan laakiin muhiim ma aha. waxa dhacday markii fanaanadii waxay tirini waa ku rabaa haddaan ku jeclahay. markaas wuxuu dhahay hadda macnaha waqtigan la joogo aniga xaasi caruur leeyahay adigana sidii waagii aad ahayd uma qurux badnid inkastoo jaceelku uu ahaa wax qurux badan laakiin waqtigaagina waa dhaaftay 60 sano waa ka weyn tahay maalinkan maanta ah adaa waayeel oo baakoor cuskanayo jiran oo xanuunsan oo caafimaad u yimid. marka wuxuu yiri hadda jaceel iyo hawshiis ma ka hadli karnaa Allah ku caafiyo horena u soco. markaas hees cala qaade waxay leedahay dantayday cuslayso cid wax saaran maaye anigoo caruura cashaq laygu beero cimri iguma laabni wii caafin waaye ciraadiyo jacaylkuna caaway ciraadiyo jacaylki caaway الله يعزك. لا 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 هذا أبدا. عيرتي تالاضي نفتيدي عانانتو عقلي نمن هين بيت المتو عيارتي وبعذابيني إن لايقو عاي إرشادي جاعيلكن عاويكن بي واو جاعيلكي عاويكن بي eegara la noqdo fanaanada codkeedu wuxuu ahaa cod dananaya dhuuxa bini'aadamkana dhex galaya dhex shibaaxaya qof walba oo dhageystana dareen gooni ah ku biiraya balse codkeedu wuxuu u ogyahay dameero dhan raacatay ama urgi iska heesay raali ka noqda. waxaase heestaasi ay ugu reebtaa aniga iyo dadka la midka ah oo macaashiqiinta ah inay xusuustaan in waqtigu uu yahay waxa ugu muhiimsan ee laga faa'iideysto. saacaduna ay tahay mid aan joogsanaynin oo ku jaraysa wanaag iyo xumaan waxay kugu soo martana maalintii ku dhaaftana waa mid aan dib loo eegi doonin. bini'aadamkana waxay ugu jecel yihiin in ay sameeyaan ama ay dib ugu laabtaan waqti ka tagi taasoo aan suurtagal ahayn maalinta shalay ahadoo ku dhaaftana waxa kaaga dhow maalinta qiyaamaha. dhalinyarada maanta soo koraysa macaashiqiinta waxaan leeyahay ha isku xirinina maaliyad dhaqaale nasabnimo nasab dhiman iyo waxyaabo material adduunyo ah. waxa isku xirtaan kaliya taqwada wanaaga sharafta iyo qofka dadnimadiisa iyo qalbi wanaaga. qofkii qalbi wanaagsan ku siiyo kuwana kalsoonaada waa inaad siisaa inta uu ku siiyay 10 jibaarkeed. noloshana waxay ahaan doontaa mid idin qurux badan maalmaha kooban ee noloshu waa maalinta dhalatay iyo maalinta dhimanayso inta ka dhaxaysa wixii aad samaysatay oo wanaag ah. sidaas iyo nabadgelyo.